السلام عليكم أخياري kusoo dhawaada channelka nolosha farxadeeda magacayga waa Maxamed run ahaantii maanta waxaan rabaa inaan update gareeyo about the COVID-19 haddabaan waxaan ka imaaday isbitaalka ka imaaday shaqada ka imaaday marka xitaa dharka iskamaanan bedelin maxaa yeelay waxaan rabaa inaan la share gareeyo waxa ka dhacayo isbitaalada ka jiro run ahaantii isbitaalada waxa hadda socda wax weligeed la arkay waxa ka dhacayo waxa waaye ii sheeg cudurkan run ahaantii dadka si xun ayuu u galayaa dadka si xun ayuu baabinayaa not only that kaliya kaas kaliya maahan xitaa siduu dadka u laayna si run ahaantii si silac ayuu dadka u dilayaa maxaa yeelay sidaa ogtihiin cudurkani wuxuu halis ku yahay ama wuxuu baabi'iyaa sanbabayaashu baabi'iyaa marka sanbabaha markuu tago sanbabaha ayuu wuxuu ka buuxinaya fluid macnaha biyo ka buuxinaya iyo dhacaan ay ka buuxinaya suuga meesha ku jira wuu cunayaa hadda shiftigaan soo shaqeynaya 2 qof ayaa hadda dhimatay marka muxuu ahaa si silac ayuu dilaa waxaa u dhimanaysa adigoo maaragtay inta lagu waday biyo lagu dhexgeliyo macnaha biyo lagu dhexgeliyo hoos lagu geliyo lagu haayo biyaha maaragtay madaxaada hoos lagu haayo maxaa yeelay biyaha sanbabihii galaya sanbabaha istaagaya kanna waa biyihii sanbabihii biyo ka buuxsamayaan marka sidaas daraadeed qofkii waa qaylinaya waa cabaalay wuxuu leeyahay inuu wuxuu rabaa maaragtay inuu qufacaa soo bixinaya waxaa waaye biyaha sanbabihii ka buuxsamayaan muxuu ahaa ii sheeg yuu rabaa inuu soo bixiyo marka waxaan rabaa inaan dhaho akhyaaray please fadlan guryihiina jooga banaanka u bixina run ahaantii cudurkan cudur ciyaara ma ahan saad ogtihiin dowladana iyo governmentdana loo shutdown gareeyey wadamo badanaa shutdown laga dhigay cudurkan cudur ciyaar ma ahan maxaa yeelay wax weligeed la arkay ma aha saacado gudahood ayuu qofka maarka sanbabihiisa dhan ku dhamaanayaan uu biyo ka buuxsamayaan marka waxaan dhihi lahaa akhyaaray fadlan please guryihiina jooga guryihiina kasoo bixina wax walba hadduu rootin ka dhamaaday ama bariiskin ka dhamaaday ama waxay ka dhamaaday biyaha kaliya caba midda kale oo aan rabo waxay tahay inaan la shargarayo isbitaalka aadin haddii aadan macnihii aadan neefsan karin markii ugu dambeysa oo isbitaalada aadaysa waxay tahay neefsashada haddii ku dhibayso intaas kaliya isbitaalku aad maxaa yeelay isbitaalka horta hadaabadka isbitaalka waxaa lagu leeyahay maxaa meeshan ka samaynaysaa macnihii meesha maxaa ka samaynaysaa macnaha waqti lugaha ay xanuunaya ama madaxa ay xanuunaya ama keliya ay xanuunaysa waqti laga hadla hadda mala joogo waqtigan marka midda labaad haddaa isbitaalka aadid waxaa laga yaabaa cudurkii meesha yuu yaalaaba meesha lagu daaweynayo cudurkaas cudurka adaa raadsanaysid waa isbitaalka aadina unless isbitaalka hadaa aadaysid ay tahay arrimo sanbaba ku saabsan macnaha inaadan neefsan karin that's the only reason that you should go to the hospital at this moment marka fadlan please stay safe guys dharka xitaa iskama bedelin maxaa yeelay run ahaantii I wanna just share with you this waxaan rabaa inay la share gareeyo arrintan maxaa yeelay cudurkan si xun ayuu dadku u leynayaan silacna dadku u dhimanayaan sidaan hadda idiin sheegay haddabaan aan la hadlayo xitaa weli maanan gaarin the peak timeka waxaa waaye meesha ugu sarreyso cudurka uu gaarayo waaye isbuuca soo socdo iyo isbuuca ku xigo run ahaantii waa kasii dari doonaa macnahii waxaad maqli doontaan dhimasho fara badan ilaahay kuma keena ilaahay dadka ka badbaadiyo laakiin muxuu ahaa maaragtay waa wax macnahii haddadaanu macnihii inuu kor u kaca bilaabay marka sidaa ogtiin haddadaan in la hadlayo maraykanka keliya waxaa ku dhimatay 1,100 qof ay u dambeysay markii aan fiirinayo marka muxuu ahaa isbuuca soo socdana waa kasii daraysaa isbuuca ku xiga waa kasii daraysaa marka fadlan please stay home please stay safe salaadiina tukada ilaahaygiina barya sooma muxuu ahaa isbitaaladana ka fogaada isbitaalada ha aadina haddiisan aysan wax emergency usan jirin